عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معمل ساكا waxaan ku hayaa 3 guri oo kaasi uu kaari korna yahay labada kalena ay dhex yihiin ayaan ku hayaa macmil mid walbana waxa uu ka dhisan yahay cabir ahaan 8 iyo 15 gudahana waxa uu yahay 3 jiifa fadhiyo cuntadii iyo kitchenkii suurigii public ahaa iyo kibaadka iyo dheer hal gaari galay intaas weey marka gurigan doonayaan hadda gudaha u galno هذا معمل واكن قريه بين قدونا يعني قدها وقلا الباب كي بين هذا كجاي مرمر كاسر دول خيالة كاري كلكا وكاس هلكا واحد لو قليا قريه أيه لو قليا قلالك لو قليا هلكن وكاس halkan qolka uu soo horeeya albaabadii baan la gelin baa u haray bas la kala wada maadeen qolkan waa qolkii fadhiga haawi waana kaari koorna gurigan aan ku jiray hadda cabirka ku fadhiisan soo sheegay 8 bay ku fadhiyaan halkii guriba hawa fadhigi aad buu u weyn yahay aad buu u fadhiyo kana isaguna waa qol kale weey isaguna waa qol kale ka halka daaqad buu leeyahay qolka kale weeyaa kana waa daaradii weeyna kana waa qol kale isaguna waa arkaysaa qolka kale weeyaan daaqad leeyo dibadda ku leeyahay kana waa suuliga raayay public ahaawi aka suuliga public ahaawi halkan daarad ku leeyahay qorraxda ku leeyahay halkan albaabka la gelin doona markaas gurigu isku danaandana kana waa kitchenkii weey waa kitchenkii weey kana waa hurdadii weey kana baadkeegii wadata waka albaabadu baa gurigan u haray khalaas wax kale ma harin iyo daaqadaha la gelinayo si qurux badan guriga gudaha daarada waxa uu ku leeyahay gypsum kii baa ku xiran